السلام عليكم وهرين soo dhawaada dhamaan waa anigoo ah Khalid Cabdiraxmaan waa mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay 9 sir oo ku jirta KineMaster waxaan isugu xigsiin doonaa sida ay u kala horeeyaan haddaba waa sir la soco muuqaalka oo dhameystiran iyo 9 sir ee ku jira KineMaster soo dhawaada mar kale casharkan waxa uu ku yimid dalab ka yimid dhanka ardayda waxaan soo galiyay codeyn maalin dhaweed ahayd maxaad ka soo diyaariyay muuqaal inta badan ardaydu waxay yiraahdeen waxaad naga soo diyaarisaa video editing ama muuqaal sameyn sidaa darteed waxaan shaqeeyay in badan waxaan idin soo duubay muuqaalkan haddaba aan ka bilowno ka koowaad Fofrite hubaal waa feature ama adeeg aad u baahan doonto salahan hadda markaad rabto inaad qof muuqaal sameeyo ah tahay waxaad u baahan tahay inaad waxyaabaha qaar si maalinle u isticmaasho ama waxaad u isticmaashaa waxyaabaha qaar si maalinle marka waxa aad rabto inaad isticmaasho ama daily basis-kaaga muuqaal sameynta ku jira waxay u baahan yihiin in aad meel ku save garayso hadda markaad muuqaal soo geliso waxaad sameynaysaa inaad gasho media-haaga KineMaster kadibna aad soo gashan doontaa intro-gaaga sidoo kale aad u baahan tahay muuqaalo kale ayaad soo gelinaysaa marka haddii aad rabto inaad markasta aan intaad soo gasho media kadibna aad baadho intro-haagii kadibna aad soo geliso sida wax kaaga fudud aad rabto intaad dhisanaysaa marka wax kaaga fudud inaad tagto media-haaga kadibna aad timaado intro-gaaga dushiisa kadibna aad intro-gaaga qabato aad Fofrite ku darsato ama calaamadda xidigta ku dhufato kadib si dhib yar waxaad imanaysaa media-haaga kadibna halka ku qoran tahay Fofrite ee ku xigta background ayaad ku dhufanaysaa halkan ayaad ku darsanaysaa intro-gaaga si marka waxaan filayaa inaad Fofrite fahantay anu nimaadno feature-ka labaad ee ku jira KineMaster waa full media browser and full audio browser hadda markaad muuqaal sameynayso ama aad ku jirto media-haaga waxaad aragtaa media-hu inuu yar yahay ama intan yar ee muraayada shaashadan inta hore uu yahay marka sidaad ku ballaarsan kartaa weeyaan sidee aad uga dhigi kartaa media-haaga mid ku fadhiya dhammaan shaashada oo dhan hadda waad aragtaa waa halfka muraayada marka saad marka u saarato waxaad imanaysaa ugu horeyn waad ka soo noqonaysaa halkan waxaad imanaysaa settingska oo halkan hoose ku yaala kadibna waxaad u baxaysaa hoos waxaana ilaa aad ka arkayso full media browser full media browser mode on ka siinaysaa ama waad furaysaa waad aragtaa horta hadaan nimaadno full media browser waad aragtaa dhammaan in uu noo saaran yahay shaashada oo dhan sidoo kale dad u baahan tahay awriyahan waad sameyn kartaa oo full audio browser waad aragtaa media yahay ama intan yar ee muraayada shaashadan inta hore uu yahay marka sidaad ku ballaarsan kartaa waad aragtaa waa halfka muraayada marka saad marka u saarato audio browser waxaad imanaysaa kaliya isagana settingska kadibna waxaad ka siinaysaa on baad waxaad dhahaysaa aan full audio browser kadibna haddaad soo gasho projectkii ku furnaa waxaad aragtaa media audio browser-kina sidoo kale ina uu noqday full ama waxaan filayaa inaad fahanteen feature-ka labaad ee ku qarsoon KineMaster-na aynu gudubno feature-ka saddexaad photo zooming tusaalahaan hadda markuu ku furan yahay project oo aad soo geliso markaa projectkaaga sawir tusaalahaan sawirkan oo kale waxaad aragtaa marka qaar in sawirka qayb ka mid ah uu si soo dhaweynayo tusaalahaan sidan oo kale inuu yahay sawirku marka sidee aad ku joojin kartaa markaa zoom ama sawirka is soo dhaweynaya ku istaajin kartaa sawirka sidaas oo kale ha ahaado waxaad imanaysaa kaliya markuu muuqaalka ama sawirku furan yahay waxaad ku dhufanaysaa sawirka kadibna waxaad imanaysaa halkan oo ah ban and zoom halkan ku xigta kadka marka ama jaritaanka halkan markaad timaado kaliya waxaad oranaysaa si aad socodka ama motionka uu sameynayo sawirku joojiso calaamadan ayaad ku dhufanaysaa calaamadan labada equal ka ayaad ku dhufanaysaa hadda sawirkii wax dhaqaaq ama sameynayo sidoo kale dad u baahan tahay sawirka qayb ka mid ah soo dhaweyso kaliya waxaad shaashadaada labada farood ku qabanaysaa sidaas oo kala kadibna halka aad doonto ama meesha aad doonto soo dhaweyn karaysaa halka hoose halka sare
marka sidaas aad ku gudbin kartaa photo zoom ama sawirka is soo dhaweynaya sidoo kale dad rabin waad ka noqon kartaa adigoo sida ku deynaya marka aanu gudubno feature-ka afraad timeline full screen waxa weeyaan inaad ka dhigan karto timeline-kaaga inuu noqdo mid weyn soo markaad ka shaqeynayso muuqaal weyn ama project ama muuqaal aad sameynayso project weyn noqon karo ama muuqaal yar baan soo markaad ka shaqeynayso waxaad u baahan tahay timeline-kaaga ama halkan aad muuqaalada ku jarjarayso inaad si fiican u aragto markasta hoos ma bixi kartid kadibna ay kelmaysi tragaskaaga kugu jira meeshan intay yihiin waxaad u baahan tahay inaad weynaysato timeline-kaaga si aad weynaysan kartaa markaa timeline-kaagan ama halkan aad ku jarjarayso muuqaalada ee tragaska isdul saaran markaa kolna yaraada timeline aad gelin horta kuwa markaas weynaysan lahayd waxa weeyaan kaliya waxaad imanaysaa project aad ku jirto kadibna waxaad imanaysaa calaamadan ka hooseysa stingiska calaamada markaad ku dhufato waxa si toos ah isku yeelinaya timeline-kaaga waad aragtaa hadda waxaan arki karaa meel kasta oo wax ka jaray sidoo kale waxaan arki karaa muuqaal kasta hadaan weyneeyo iyo hadaan yareeyo waad aragtaa haddaan u baahanahay sidoo kale aan arko preview ahaanan shaashadii bartan ka arko kaliya waxaan sameynayaa calaamadan preview-ga ama sub muuqaalka oo kala ah ayaan ku dhufanayaa halkan waxaan ka arki karaa markaa timeline-kayga sidoo kale waxaan ka arki karaa halkan muuqaalkayga sida uu yahay halkan waan ka daari karaa kadibna waxaan arki karaa muuqaalkayga halkan ma dhigan karaa sidoo kale halkaas aan dhigan karaa si aan si fiican uga arko hadda doontana halkan ma dhiganaysaa marka kolba dhinacaad ma dhigan kartaa waad aragtaa waxa halkan ka aragtaa muuqaalkaaga sida uu socdo iyo waxa uu yahay sidoo kale halkan aad u baahan tahay jarjaritaan waad ka arki kartaa marka full timeline saas u shaqeeyaa feature ku xiga hadaan u gudubno audio envelope marka aad ka shaqeynayso muuqaal weyn ama muuqaal aad sameynayso waxa dhici karta inaad u baahato background music ama cod ka dambeeya muuqaalkaaga codka waxaad u baahantahay markaad hadlayso oo kala in codkaasi gaabsamo feature-kan audio envelope waxa uu ka caawinaya marka codkaaga inaad meelaha qaar gaabin karto meelaha qaarna aad dalici karto hadana waxa laga meelaha aad hadlayso oo kala aad gaabin kartaa meelaha aad hadlayno aad dalici kartaa marka si aad hadaba qaybta aad doonto dalacdo ama aad u gaabiso waxa ka caawinaya audio envelope soo hadda muuqaalkan waan ku tijaabinayaa waxaad imanaysaa markaa codka ayaad imanaysaa doonisaad qabanaysaa soo hadda background music aan rabayaan gaabiyo markuu bartaa mariyo muuqaalku waxaan ku dhufanayaa calaamadan audio envelope ah calaamadan gaabis iyo wax la gaabinayo ku sawran yahay soo waxaan rabaa qaybtaas inaan gaabiyo muuqaalkaas qaybtiisa inaan gaabiyo ayaan rabaa kaliya waxaan imanayaa calaamadan keyframe kaasan ku dhufanayaa ka wada sorry keyframe ma ku dhufto waan xagga waan istaajistay qayb kale aan imanayaa su'aalahan maxalkaasan gaabinayaa horta ugu horreyn markaan keyframe ka samaysto kalaan samaysanayaa si uu igu fududeeyo hawsha kadibna waxaan gaabinayaa keyframe-ka dambe ka hor haddaad gaabiso codka dhan baa wada gaabsamaya ka dambe haddaad se gaabiso waxa gaabsamaya intaad doonayso ka dambe ayaan gaabinayaa haddana waxaan imanayaa qaybtan gare oo intu ka dhamaanay muuqaalku kadibna waxaan samaysanayaa keyframe cusub mid kale aan samaysanayaa marka waxaan dalacayaa ka hore hadda markii hore hadaan dalacayay ka dambe waxaan dalacayaa hadda ka hore ama ka dambe aan dalacayaa si aan codka xagga dambe u ballaariyo waad aragtaa hadda waxaan la sameeyaa cod kale marka partiska ama qaybaha rabtaa saa ku gaabsan kartaa audio envelope-ka haddaan tagto waad aragtaa intan cod mare muuqaalku halkan marka uu gaadhana codkii ayaa biloomaya qaybo kale aad samayn kartaa sidan dad u baahan tahay codka inaad wada gaabisana hoos ayaad geyn kartaa sidoo kale dalabteed qayb ka dhintan waxaad oranaysaa hoos u yaraba marka codku wuu sira gaabinayaa kadibna wuu isdalacayaa marka dambe saad ka aragto calaamadahaas ama keyframeska aan samaynay marka audio envelope-na waxa uu tarayaad gaabin karto qaybaha qaar ee aad rabto muuqaalkaaga aynu gudubno feature-ka ku xiga
audio bin waxa ka saacidayay inaad codkaaga xiran karto ama aad u istaajin karto meel si aan dhaqaaq u sameyn ama aan kolba dhinac u dhaqaaqin. marka si aad featurekaas ama toolkaas u shaqaysiiso waxaad kaliya qabanaysaa codkaaga ama muuqaalkaaga codka uu leeyahay, kadibna waxaad imanaysaa halkan hoose si aad u aragto calaamadan ka hooseysa thumbnail previewga. markaad ku dhufato waxaad aragtaa codkaagii inuu ku bingalaysamay. haddaad delete gareyso taraagyadan hadda codkaagii barti kama dhaqaaqayo, halkii ayuu taagnaanayaa. waad aragtaa dib ma dhaqaajin kartid, codkii waa xagaas ku dhegan yahay. haddaad delete gareyso thumbnailka halkii baad ugu imanaysaa. soo haddaan wada saarna hadda deed codkaaga bin ku ahayn isku soo yaacayaan. haddaan soo gelino taraagyo waad aragtaa codkii halkii ayuu noogu taagan yahay. audio bin saas ay u shaqeeyaan. haddaad rabto inaad ka qaadana waxaad samaynaysaa ka qaadaysaa codka, kadibna codkaaga waxaad geysan kartaa meesha aad u baahan tahay ama aanu ka dhaqaaqin codka iyo muuqaalka. aynu gudubno featureka xiga, audio loop waxa uu caawiyaa ama qofka ka caawiyaa featurekaasi in codka background music aad u isticmaalayso muuqaal aad labalaabi karto. tusaale ahaan hadda markaad muuqaal samaynayso oo kale background musicyadaasi markaa ma noqdaan kuwo buuxiya markaa muuqaalka. tusaale haddaan ka soo qaadno kan muuqaalkan rabnay inaan samayno, waad aragtaa muuqaalka dhararkiisa kana uu yahay background musicii ama codka kaan u isticmaalaynay kan background music u isticmaalnay. tusaale ahaan haddaan ka soo qaadno waxaad aragtaa muuqaalka markuu bartaa marayno codku dhammaanayo. intan kaloo dhanna muuqaalka ay tahay bilaa cod ama bilaa background music ama wax saaran aanu jirin. sidee markaad u dhammaystiri kartaa? ilaa halkan ayuu tarayaa. markaa waxaad samaynaysaa keliya waxaad la imanaysaa codka aad rabto inaad markaa ku dhammaystirto muuqaalka, kadibna waxaad u baxaysaa hoos, kadibna waxaad imanaysaa halka ku qoran tahay loop, kadibna waxaad oranaysaa loop to end. labadaas ayaad enable odhanaysaa, kadibna waxaad aragtaa in codkii isku dhammaystiray muuqaalka. haddii xitaa aad ku darto track kale ama aad wax kale soo geliso thumbnailkaaga automatically ayuu ugu darayaa. markaa uu ku soo celcelinayaa codkii. waad aragtaa codku intaasuu ahaa. waad aragtaa markaan ku darnay audio loop and loop to end, waad aragtaa muuqaalkii isku dhammaystiray hal background music ama hal cod oo isku mid ahna uu saaray. intaad kolba codka soo gelin lahayd oo cod kale soo saari lahayd haddana aad soo gelin lahayd kaliya kan waxa uu ka saacidayaa inaad codkaaga ku soo caashin karto. sidoo kale waad isticmaali kartaa. in gudubno featureka ku xiga kaas. featureka ku xiga qarsoon ee kelimada ku jira waa maxay? waxa weeyaan project duplicate. si aad u labalaabi kartaa projectigaaga. tusaale hadda markaad samayso project waxaa rabaa tusaale ahaan oo kale in ka soo qaado inuu yahay kani project. sidee markaan ayuu labalaabi karaa projectigan? kaliya waxaad imanaysaa projectiga doonayso. halka markaa waxaad ku dhufanaysaa si aad u bedesho markaa duplicate ugu samayso waxaad ku dhufanaysaa calaamadan pluska ama labada lakayb soo saaran ee plusku yaalo. markaa wuxuu tarayaa wuxuu ku leeyahay duplicate projectigaaga labalaab. markaad labalaabto projectiga waxa mid ahaan wuxuu ka dhigayaa copy. tusaale ahaan kan wuxuu yiri untitled copy, kana waa projectigii mainka ahaa ee guud. kan haddii ay jiraan waxyaabo aad rabin inaad ka saarto, tusaale ahaan effectiyo ayaad rabtaa inaad ku darto kan kale si aad u eegto bal sida ay wax isku bedelayaan. marka kan waxaad isticmaali kartaa copy ahaan baad isticmaali kartaa. waxbaad ka bedeli kartaa. haddaad jartay muuqaalkan waad aragtaa oo intan delete gareyso projectigaagii weynaa haddaad timaado ee untitled-ka ahaa waad aragtaa hadda waa project dhammaystiran. markaas sida loo labalaba projectiga doonayso waxaan filayaa fahanteen featurekaas ka ku xiga aan nimaadno featureka ku xiga. feature ugu dambeeya wax weeyaan sidee ayaad ugu bixin kartaa magac ama projectigaaga magac ugu bixin kartaa ama project name baan oran karnaa. tusaale ahaan markaad project samayso si aad u save gareyso waad ka soo noqonaysaa kaliya. marka waxaad aragtaa projectigan inaan wax magac lahayn ama uu yahay untitled. sideed magac ugu samayn kartaa ama projectigaaga aad magac ugu samayn kartaa? kaliya waxaad imanaysaa projectiga aad doonayso inaad magac u bixiso, kadibna waxaad ka bedeli kartaa halkan magaca projectiga aad u bixinayso. tusaale ahaan aan idhaahdo footage
magacaad doonaysid ku qoran kartaa barta marka sidoo kale dad u baahan tahay waxaan filayaa faantay featurekaas halkaas ay ku soo gabagabayn doonaa casharkeenu ku saabsanaa maanta 9 sir ee ku jira KineMaster waxaan filayaa inaad fahantay insha Allah sidoo kale ha ilaabin fadlan inaad taada muuqaalka like subscribe na dhaxda channelka sababtoo ah inoo tahay dhiirigelin iyo inaan hore ugu sii soconno fadlan iskuna day inaad ka faa'iideysato maalmahan waa maalmihii khayrka badnaa ee 10ka Dhulxaj badisa cibaadada iyo wanaaga waa anigu Khalid Cabdiraxmaan Maxamed oo idin leh nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.